waxaanu muuse xasuusinaynaa inaanu dalkan xoog ku qabsan kuna haysan karin haddii uu ku sii wado caragsiga iyo sharci jiirka waxaanu u sheegaynaa inaanaan taag iyo talo midna u waayin toosintiisa ee aanu ku dhaqaaqi doono tallaabo kasta oo qarankan lagu badbaadinayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirre oo goor dhaweyd warbaahinta kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa dhaliilihii ugu cusla u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland waxa uu sheegay in xisbigiisu mowqif adag ka qaadanayo xubnaha lixda ah ee loo ansixiyay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland gudoomiye Cirro oo luuqadada kula hadlayay xukuumadda madaxweyne Biixi waxa hadaladiisa ka mid ahaa 2 sano ee muuse dalka talada hayay dadkii reer Soomaaliland waxa ka muuqda rajo xumaan baahsan iyo dayow aanay garanaynin meel lagu wado maanta cabashada iyo yuhun xumaanta waxa ka sinmay dadkii doortay muuse iyo kuwii aan dooran waxa soo baxday oo dhalatay xukuumad ninka hagaya ay ku adag tahay ku dhaqanka sharciga ay ka go'an tahay burburinta nidaamka iyo shuruucda walaalayaal baadi socda ama sumadda hogaaminta muuse 2 sano ee uu xilka hayay waxay noqotay sidan koow kala qaybinta iyo kala irdhaynta shacbiga reer Soomaaliland halkii uu ka midayn lahaa 2 ku xadgudubka iyo ku tubashada dastuurka iyo xeerarka dalka isagoo waajibkiisa koowaad yahay ilaalintooda laguna dhaariyay waxa tusaale cad inoo ah in maanta golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland muddo xileedkoodu dhacay muddo kordhina aan loo samaynin sharciga aanay ku joogin dalka waxa ka mid ah 3 faragelinta nidaamka ganacsiga xorta ah ee uu jideeyay dastuurku 4 xakamayn la'aanta sicir bararka halkaha goostay ee ragaadiyay dhammaan nolosha shacbiga reer Soomaaliland hoos u dhac weyn iyo dabaca ku yimid amniga gudaha taasoo sababtay inay ka dilaacaan markii ugu horeysay jabhado gudaha Soomaaliland xisbiga wadani hore u cambaareeyay jabhadaha ka samaysmay dalka gudihiisa mar labaadna waanu cambaaraynaa u adeegsiga 6 u adeegsiga awoodda qaranka dana shakhsi ah oo ay ka mid yihiin dhulboob iyo ganacsi gaar ah 7 caadaysiga ku tumashada xuquuqul insaanka waxaynu shalay dhammaanteen goobjoog u ahayn oo aynu indhaheenna ku arkaynay in hanaankii dimuqraadiyadda iyo rajada doorashada Soomaaliland hal cad lagu gowracay horteenna iyo sida sayladda uga dhigeen golihii wakiilada Soomaaliland dhacdooyinkaas oo dhammi iyo qaar kale oo badan waxay tilmaan xun u yihiin hogaaminta Muuse Biixi ee saluuga salfudaydka iyo canaadka aan qiimaha ku fadhiyin isugu soo biyashootay isla markaana marag cad u yihiin tala xumada hoggaanka maanta jira haddii aynu sidaa ku sii soconno waxa jiritaanka Soomaaliland laga dooni doonaa qarannimadeeda meel fog ilaahay se kama dhigo ceebtii iyo foolxumadii shalay dhacday ee ahayd inqilaabkii golaha iyo afduubkii sharci ee la sheegtay in lagu ansixiyay xubnihii xeerka xaaraantinimeeyay ka mid noqoshadooda komishanka doorashooyinka qaranka waxaan mar labaad ummadda u xaqiijinayaa in xisbiga wadani aanu si aan ka noqosho lahayn u qaadacay la shaqaynta iyo ka mid noqoshada xubnaha la sheegay in la ansixiyay xisbiguna diyaar uma aha inuu xalaaleeyo ama jideeyo waxaan sharciga dalka waafaqsanayn arrintan ama arrimo kale
gudoomiye cabdiraxmaan ciro ayaa waxay warbaahintu su'aalo ka weydiisay xaaladda hadda taagan ee dalka iyo in xisbigiisu tahli kari waayeen mucaaradada adag uu kala hortago xukuumadda madaxweyne biixi waxaana su'aalihii la weydiinayay gudoomiyuhu u dhacday sidan waxaan ka socdaa telefishinka sahan khaladaadka dawladdu gasho marka dad badan oo dawladaha aqoon leh ay ka hadlayaan waxay yiraahdaan khaladaadka badan ee dhacay waxaan jirin mucaarad adag oo arintaasi ka falceliya mucaaradadaadu inaanay adkayn ma isku aragta maya kaalintii mucaaradka Muuse galay mucaarad noqday marka dalka loo mucaarad ma qaadi karo wad maasantahay hadalka gudoomiyaha ayaa wuxuu ku soo beegmaya xilli labada xisbi mucaarada Soomaaliland ka jira ay gabi ahaanba qaadaceen xubnaha cusub ee loo ansixiyay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Sakariya Sudaysi telefishinka Sahan Hargeysa